السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقارير دافع عن كده الملك صنع داون إنسان كسود هذا channel كينا وضلنا وضل مرفلوغس وحالك نذكر هلا ولكن موليد هالك نقد داون إنسان وضل مرفلوغس وحرج لنا كسود هذا مقال كينا ما أنت وحنكو la faguri doonaa su'aalihii muuqaalkii hore aynu ku soo bandhignay ee ahaa sidee lagu imaan karaa magaalada Dubai baasaboor nooceeya lagu imaan karaa magaalada Dubai kharash intee lag baa ku bixi karaa hadii aad doonayso inaad timaado magaalada Dubai iyo su'aalo kale oo aad u fara badan waxa kaga jawaabi doonaa muuqaalkeena maanta soo dhawaada baan idin leenahay haddaba asxaabta qaaliga ah channelka ku soo durka haddaad tahay markii ugu horeysay channelkayga soo booqato subscribe saar muuqaalka like saar waxaad ka bogan doontaa muuqaalo fara badan oo ku saabsan magaalada la isku arkay ee Dubai ku soo dhawaad hadaba muuqaalkeena maanta su'aasha ugu horeysa waxa weeyaan dadka ugu tirada badan ee Soomaalidu ay soo weydiiyaan baasaboorka Soomaaliya ma lagu imaan karaa magaalada Dubai su'aasha jawaabteedu waa maya baasaboorka Soomaaliga hadda waa la joojiyay dawladda Imaaraadkuna way xidhay baasaboorka Soomaaliga haddaba su'aasha labaad waxay noqon kartaa baasaboorkeeba lagu imaan karaa magaalada Dubai baasaboorada magaalada Dubai Soomaalidu ku imaan karto waxa kamid ah baasaboorka Itoobiya baasaboorka Somaliland baasaboorka Djibouti intaasay ku imaan karaan Soomaalidu magaalada Dubai su'aasha saddexaad waxay noqon kartaa kharash intee leeg baa kugu bixi kara inaad timaado magaalada dalxiiska ee dadku wada jecel yihiin ee Dubai kharashka kugu bixi kara qof waa sidii laakiin qiyaas ahaan ani ahaan markan imanayo kala waxa igu baxay adigu fiisaho kala ilaa $300 tigid macafiisa adigu ilaa $500 iyo $500 oo pocket money oo la yiraahdo oo fiisaha marka lagu soo saarayo lagu oranayo pocket money ma haysataa waayo magaalada Dubai lagama ogolo baaga muddada moogta iyo waxyaabaha liid raacista iyo inaad dagas ahaato waxa la doonayaa qoladan Imaaraadku waxay ugu tala galeen marka magaalada Dubai la imanayo in waxaagu ay isa saar ahaadaan oo kharashkaagu meel uu ku yaalo in isfahanay baa filaya marka su'aasha taas ay kaga baxayna su'aasheena xigta waxay noqon kartaa magaalada Dubai marka timaado shaqo ma laga heli karaa magaalada Dubai shaqo inaad ka hesho waxay ku xiran tahay shakhsiyadda qofka hadii ay sidato shahaadooyinkeenii wadankeennii Somaliland Soomaaliya Djibouti waxyaabahaas oo dhan waa lagu bedelayaa waxaana lagu bedelayaa wadanka Imaaraadka waayo wadanka Imaaraadku ma aqoonsana Soomaaliya Somaliland Djibouti oo shahaadooyinkaas oo dhan ma qaataan iyagu waa in shahaadada lagu bedelo Imaaraati kadib waxaad heli kartaa shaqooyin aad u fiican haddaanad shahaado haysan shaqooyin kale oo Soomaalidu ku shaqaysato aad u buuxaan waanad heli kartaa haddii lagu Dubai shaqo laga helayo been baa lagu sheegay waxay ku xiran tahay shakhsiyadda qofka ayay ku xiran tahay iminka wadankeena markaynu joogno dad baa jira shaqo aan helin iyagoo xataa aan raadininba iyo dad iyagoo shaqadii u hawlgalay oo raadiyay helay marka waxay ku xiran tahay shakhsiyadda qofka su'aalo fara badan oo kale aynu ku soo gabagabeyn doonaa muuqaalkeena intaan ka dheeraanaya ku soo dhawaada channelka ku soo dhawaada muuqaalka meel dheer gaarsiiya channelku kan baag bay sameynay hoos u dhacweyn baa ku yimiday marka waxaan doonaynaa inaan kor u qaadno saxaabta qaaliga muuqaalka kor u qaada soo dhawaada waxaan ku wari su'aalo fara badan oo aad jeceshihiin in la idinka soo jawaabo commentiga noogu soo gudbiya waxaan hadda noo gudbi doonaa qaybaheena kale muuqaalka xiga muuqaalku dheeraan doonaa part 1 part 2 part 3 buu yeelan doonaa marka su'aalaha hadda waxaan kaga jawaabi doonaa maanta waa muuqaalkeenan waa part 1 ka su'aaluhu intaas ku dhan yihiin muuqaalka meel dheer gaarsiiya let's go